waxaan maanta ku soo dhaweynay xarunta Villa Soomaaliya safiirka cusub ee France Ambassador Saban oo dhiibay waraaqiisa aqoonsiga u dhiibay madaxweynaha. waxaan ka wada hadlay xiriirka soo jireenka taariikhiga labada wadan. waxaan kaloo ka wada hadlay arrimaha dadka taagan mandiqada iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka. waxyaabaha ugu waaweyn oo ka wada hadlayna waxaa ka mid ah iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo iskaashiga arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda. France is a big partner of Somalia, and what I say to the president it is that we want the success of his government, and we want the success of all his ministers. France will be very close to the government of President Farmajo, helping him in political, economical, and security fields. One of the most important things that we have to help you in Somalia to constitute, it is a SNA, a Somali National Army, that can control the country in the name of the government. So we will help the government of President Farmajo in the security field, and especially in the counter-terrorism field. We want the Somali people to live in peace, in security, in harmony, and we want my best wishes that I can send on this occasion of my credentials are to the Somali people. We want them to succeed in this new era, and we want to accompany them on a total political, economical, and security recovery. Thank you very much.